بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطبة جمعة أنتي وخطيبكم نو أخري أي نوتهاي dadkaas walaalaha ee la sheegay dhibaatadaas haysataahi naguma cusba hadee awalna waan la xanuunsan jirnay haddana sidoo kale aan u xanuunsanaynaa laakiin annaguna sida uu sheekhuba isu barbar dhigay mid aan taas aan ka yarayn oo noo gaara ayaan haysata adduunyaduna qarniga 12aad adduunyo maslaxadeed ay iska noqotay oo annaga la sidayna waxaan xaq ugu lahayn ummado badan oo muslimiin ah in ay qadiyadan khawaarijta oo dadka muslimiinta iyo dadka caalamka oo dhan oo ah maxaan ku iraahdaa cadawga in nalaga garb istaagay ahayd qaar badan oo kamid ah waa nalaga garb istaagay dabcan laakiin sidii haddana ay u dhameystirnayd ma dhaam intaas kadib laakiin xaqiiqada dhabta waxay tahay annaga iskale wiilashu annaga inaga soo dhaxbaxeen khawaarijta dhulkanaga ayay joogaan marka annaga mas'uuliyadda koobaad ay naga saaran tahay inaan xalino waa ku baaqnay intaas soo jeer inaan si nabad ah ku xalino oo ay isbedelaan ka tanaasulaan fikirka qaloocan ku soo noqdaan ummadooda laakiin ilaa ay hadda inta badan wali baaqeena salmiga nabadda ah daga laab u dolaala kuma dhicin waa rajaynaynaa mustaqbalka inay ku dhacaan u saaxan mayna meel ilaahay soo hanuuniyo intaan dhahno وساحمينا مال إلهي سوهمنا لنا وأنا إسكدعيننا هدي اللي يراه وأنا وحام كجلنا وعارف هذا الصوماليات أنا مش شايفه شعب الصوماليات مالك استو أوجوجو جارهان كود ميجا كنور الدجاندو أي ما كان كوهب سدين مدة دار كنور أي رنتي آد دور عن السوق هو بكرن كقاطي إن أي إسكك عيان سيدان هرو الشاقي كلون كوحو كنور يا بيه haddii barkada kalluunka uu ku nool yahay biyaha laga daadiyo ka dhamaadaan kalluunku ma noolaan karo argagixisada iyo khawaarijta waxa ay ku dhex nool yihiin oo biyahoodii ay ku dhex dabaalanayeen waa shacabka Soomaaliyeed maantana ilaahay mahadi shacabka Soomaaliyeed waa arkeen nimankaan niman la sii xambaarsanaa kar inaanay ahayn waana ka hor yimaadeen waana diideen wixii ay ku soo jireen 16 sano ee la soo dhaafay sidaas daraadeed khawaarijtu maanta waa kalluunka biyaha ka dhamaaday wali firq leh gadgadoomaya laakiin dal la garanayo qof walba meesha uu ku dambeeyay inay tahay geeri nimankaas wali waxaan ugu baaqaynaa baaq nabadeed ummadooda Soomaaliyeed soo raacaan diintooda xaniifka ee toosan ee ummadan malaayiinta ay ku dhaqan tahay abna ay ku dhaqmi jirtay soo raacaan ha ka tanaasulaan fikir aanan anagu lahayn asalkiisa aanan lahayn diinta islaamka hore looga sheegay oo aan meel raad isal midna aanan ku lahayn bal muxuu ahaay in badan oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu ka digay anuu sheegay inay jiri doonaan meel badan ay ka soo bixi doonaan annaguna aan ka midnahay meelaha la tilmaamay inay ka jiri doonaan oo ay hadda dalkeena ka jiraan marka taas dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego ayaan dhaweeto dhibaatooyin dagaal yaa lagu jiraa dagaalka guud ahaan jahooyin badan iyo meelo badan iyo wajiyo badan asoo ah yaa lagu jiraa macnaha marka haddii hal macrako ama hal goob dagaal oo culays ka yimaado macnaheedu in dagaalkii lagu guuldareystay ama lagu fashilmay ma ahan dagaal waa sidiisaba waa saas waa lagu jiraa wadada halganka iyo dib u xoreynta iyo soo celinta karaamada ummadeed iyo waxa la midkaana wada toosan oo inay inta ka baxdo meeshii aad rabtay toos ku geynaysa ma ahane waa wada leexleexata oo qalqalooc badan oo qarar ka degta oo buura fuusha oo aad iyo aad u dhib badan waay waxaan arkaynaana annaga arkayna ummadda hadda laga hadlay Falastiiniinta 70 dhowrka sano ku jirta ee arkayaan waa wadadaas halganka ah oo aan lahayn dariiq toosan loo maro balse laablaabka iyo buuraha la fananaya waxaas marka dhan maxaa u asara maxaa shabaab khawaarij iyo dad xaq jiray caalamka meel kasta ka jiraan annaga masalada maxaa shabaab dalkeena maxaa keenay kuwan maxaa dalka maxaa ku weyni cawlamada adduunka maanta sameysatay iyo globaalka horta adduunyadu waa isku xiran yihiin waa tan la yiri adduunyadu waa hal tuulo waa tan la yiri marka khawaarijti meel kale ka jirtay inay noo soo safriso fikirkii oo ay dalkan ay keentahay wax diiday ma jirin sidaas daraadeed ayaa nimankan ku yimaadaan laakiin asbaabta keenta waa maxay
asbaabta koow iyo laba iyo saddex ah ee keentay waxa waaye dalkanagu beriga ay ku curteen ay ku dhasheen ay ku bulaaleen inay dowladnimadeenu daciif ahayday oo ay nuglate meel kasta oo dowladnimadu ay ka nugushahay ayay nimankaan ku bulaalaan meeshii dowladnimadu ay ka xoogan tahayna rajo lagama qabo inay ka dhashaan mugi caalamkoo dhan dal aanay kuwa fikirka kuwaan qabaan dad qabaahi aanay joogin si kasta u yaraadaan aanay joogin ma jiro waa wada joogaan laakiin nidaam dowladeed oo aanay ku bulaali karin ayaa ka jira dalalka annaga waxay agteena ugu bulaaleen waxay tahay dowladeennii muddadii ayna soo dhexgaleen dowlad nugul inay ahayd oo aan dalkoo dhan aanan kontrolin oo dhul badan oo ballaaran oo dalka Soomaaliya ka mid ah wax dowladnimo oo gaaray aanay jirin sababtaas ayaa keentay inay dalkeena horta ku dhasho marka sababtaas markay keentay waxaan inaan ka baxnaana waxay u baahan tahay sababtii inaan cagsina oo bedelna oo dalka dowlad u yeelna dowlad dalka dhan mas'uul ka ah haday tahay bad haday tahay bari haday tahay hawo dhammaan mas'uul ka ah oo dalku u xadidan yahay u kontroolan yahay ilaalisa ximaayadeysa waxa ay dadkan waataan hadda ka hor u sheegay ummadaha dowladuhu ummad kasta ah dowlad waxay u samaysataa sabab gaar ah oo ayadoo ay leedahay ummadaha deegaanka ama dal wada degan waxay isugu jiraan kuwa kala duwan kala diin ah kala af ah kala maxaan ku raadayay asalkoodii kala muxuu ahaay jinsi maxaan ku raadayay kala duwan oo maxaan ku raadayay luqadi ka dhaxayn oo diin ka dhaxayn waxba ka dhaxayn dawlad waxay u sameystaan inay u sameyso wax ka dhaxay dadku wax ka dhaxay hadaanay lahayn ma wada jiri karaan mana jiri karaan sidoodaba ummad meel degan wax ka dhaxeeyo oo ay wada leedahay oo ay wada ilaashanayso inay leedahay waa kuwaas kala duwan marka dawladdu waxay u sameystaan wax ka dhaxeeyo oo ay wada ilaashadaan inay u sameyso dawladda sidaas daraadeed wuxuudi gaargaarka ay gooni u haystaan diimahoodii iyo wuxuudi laakiin wax ka dhaxeeyo oo ay wada ilaashadaan inay sameystaan si dawladnimadan ay ugu xoognaan ayaguna ay u wada jiraan u wada joogaan cagsiga taas marka maxaa ummad mid ah oo aan kala duwaneyn oo dhalasho ku kala duwaneyn oo dhaqan ku kala duwaneyn oo diin ku kala duwaneyn oo aan hab nololeed ku kala duwaneyn oo midaysan ayaa ayaguna dawlad sameystaan maxay u sameystaan waxay u sameystaan dawladdu in ay u ilaaliso waxaas ka wada dhaxeeyo ay leeyihiin diintii aan naga dhaxayso afkii aan naga dhaxeeyo dhaqankii suubanaaya naga dhaxeeyo dalkii iyo deegaankii aan naga wax walba naga dhaxeeyo wada leenahay waxaas aan wada leenahay inay noo ilaaliso dawladda waxa kamid ah waxay noo ilaalinaysaa diinta kamid ah diinta islaamka marka de ilaaha ballan qaaday ayadu oo hadda anagu ballan qaadkeena kuma xirna oo ilaaha yiri diintaasi anaga soo dejin anaga ilaalinayno laakiin ummadan dhaxdeeda inaan fasahaad iyo maxaan ku raadaay inxiraaf iyo balaayo kale iyo kala qaybsanaan diinta ummadda way midaysaa ayagoo kala duwan markay u timaado hal diinta islaamka haday wada qaataan way midaysaa nimana soo dhaxgalay inay dadka ku kala qaybiyaan rabo dawladda yac ka dheerayd inuu xoogaa beriga meesha way ka maqleen dawlad inaan yeelanahay waxay koow muhiim u tahay ilaalinta koow waa diinta islaamka oo aan leenahay hal shacabaan nahay Soomaaliyaan nahay isku afaan nahay isku dhaqanaan nahay laakiin qabaa'ilaan kala nahay meel aan ku kala qaybsano hoosaan leenahay kor jirida geedka waa isaga xirannahay laakiin xididihii wixii kala baxayo geedku lahay ayaan leenahay iskumana eedayna iskumana waxaynayna waa leenahay inna jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu inna akramakum inda allah yani ilaahay hor u sheegay inay jiri karaan ama qurumo dawlado loo fasiro ama qabaa'il meel wada degan sida Soomaalida kala loo fasiray qabaa'ilka saanahay laakiin taasi kormugan isaga nimaado geedka jiridiisa Soomaaliyaan wadanahay diinta naga wada dhaxayso dalka naga wada dhaxeeyo waxa dhamaan naga wada dhaxeeyo afka naga dhaxeeyo kuma kala leexsan nimanka khawaarijta marka intaana fiiriyaan oo daraasaynayeen nimankan xagee leey kala reer hebel hadaa ka gasho reer hebel ka soo horjeeda diiday oo waxa reer hebel wadaan marabna dhahayo meesha ay ka wada kacaan oo ay ka wada degaan diinta islaamka ka galno moogi inay diin wadaan ayagu dad diimeed yihiin ma xagee ka galnaa dadkan waxaan ka gali karnaa diinta intee ugu fiican waa inta meeshaas waa meeshana laga soo galay horta hadaad aragto qof fikir yar oo iska dadkeenan ama nin sheekha iska fikirka la yiraahdo qof la ordaya kaliya la cararaya hadaad aragto
nin ummadda kala qaybinayo on waaye ee nin ummadda midaynaya maaha ummadda diinta islaamka ee sunniyiinta aan ka nahay maxaanku irahdaa madhabka shaaficiga aan ka haysano kaas waaye muxuu ahaye diinteenna rasmiga ee asalka ee ku tiirsan kutubka qur-aanka ilaahay soo dejiyey iyo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ka soo haroo dhan waxa waaye wax oo hadda aan anigu aan nimankaani marka meesha inaga soo galeen waa meeshaas diintiina kuwa xunxun ee sunta ah kama ilaalin karno haddaanay dowlad lahayn dowlad ilaalisa oo kutubada dalkan la keenaya ilaalisa oo mashaayikhda dalkan maxaanku irahdaa waacidiinta oo dadka wacyiga gelinaya oo wacdinaya ilaalisa oo manhajka ilaalisa haddii aanan helin dee maalin walba mid unbaa noo imaanayo maalin walba mid oo tabeello gaar ah oo astaan yaroo meel yar oo laga soo dacmiyo xoogaa lacaga laga soo siiya ayaa noo imaanaya marka isku soo wada celi daawadeed mushkiladeenu dhan dhinac walba markaad ka eegto diinta keliya ma aha dhinac walba markaad ka eegto waxay ku soo koobnay dowladnimo